galmudug maantay nasiib waxay u heshay inay maaragtay aad u soo dhawayso madaxweynahoodii marka ugu horraysa waxaan idiin sheegayaa madaxweynaha waxaan rabnaa inaan soo dejinno gaalkacyo dhulkii ugu horreeyana maanta aan ku korsayaanayna siinaynaa dhulkii ugu silahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo maalmihii la soo dhaafay safarka nabadda ku marayay qaybo ka mid ah dalka ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay koonfurta magaalada Gaalkacyo. Soo dhaweynta madaxweynaha waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug sida madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, wasiiro, xildhibaano iyo dadweyne aad u tiro badan. dhinaca kale madaxweyne Farmaajo ayaa dhagax dhigay dayactirka wadada isku xidha magaalooyinka Gaalkacyo iyo Hobyo, wuxuuna uga mahad celiyay guddiga gacanta ku haya dhismaha wadadaasi dadaalkii adkaa ay sameeyeen kaasi oo ku aadan sidii loo heli lahaa waddo wanaagsan. madaxweynaha ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa wuxuu u jeediyey kumanaan ka mid ah shacabka Galmudug oo taageero ballaaran u muujiyay madaxweynaha. madaxweyne mudane Xaaf golihiisa wasiirada golihiisa baarlamaanka Galmudug iyo golaha wasiiradu ila socda aniga iyo labada aqalka sare ee baarlamaanka uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad Abshir Bukhari aqalka golaha shacabka ciidamada qalabka sida ugu horeeyay taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed salaadiinta halkan joogta culumada guud ahaan shacabweynaha reer Galmudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan runtii aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa sida walaaltinimada leh ee qalbiga furan oo diiran oo sharafta weyn aad ku soo dhawaysay aniga iyo wafdigayga. taasi waxay ka turjumaysaa wadannimadiina, waxay ka turjumaysaa dawlad jaceylkiina, waxay ka turjumaysaa saad u jeceshihiin midnimada, waxay ka turjumaysaa sidaad u jeceshihiin martidiinna iyo madaxdiinna. safarkan dheer aan soo galay oo aan maanta aan ku joogo magaalada Gaalkacyo magacan u bixiyay waa maqashay Soomaaliya waxa weeye waa safarkii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed. dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay qof walba oo halkan jooga magaalada Gaalkacyo iyo qof walba oo Soomaaliyeed dhageysanaya laga bilaabo maanta inay noqdaan nabadoono oo aniga iyo madaxweynaha Xaafan ugu horeyno. waxaan rabaa magaaladan Gaalkacyo inay noqoto hooygii iyo hooyadii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed. waa magaalo taariikhi ah, waa magaalo magac weyn, waa magaalo ay ka bilowdeen halgankii ugu horeeyay ee maxaan ku yiraahdaa xorriyadoonka dadkii ugu firfircoon ay ka yimaadeen siyaasiyiinteennii ugu wanaagsanaa ugu horeeyay Allah u naxariistay Cabdullaahi Ciise barnaamijka ugu horeeyay Soomaaliya. barnaamijkii ku xigay Cabdirashiid Cali Sharmaake Allah u naxariistay oo kadibna noqday madaxweyne noqday Allah u naxariisto. waxay ahaayeen runtii dadkii Soomaaliya midnimadeeda ka shaqeeyay oo ay ahayd inaan sii xoojino inaan wadno ma aha inaan dib u noqonno.
gaalkacyo nabada waa Soomaaliya nabada ogaada colaadda iyo dhibaatadu magaaladan waxay u geysatay inaysan kobcin dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan inaysan u kobcin iyadoo weliba aan arkayo magaalo weyn inay tahay magaalada ugu weyn gobolada dhexe inay tahay hadday magaalada nabad noqon lahayd oo aad ka shaqayn lahaydeen nabad ganacsiga iyo dhaqaalihii adduunka imaan lahaa magaaladan macnaheedu waxay tahay wixii la soo gudbay waa la soo gudbay wixii hadda ka dambeeya inuusan waqti naga khasaarin inaan xasuusnaanno inaan nahay dad waala ah dad ehel ah wiil iyo abtigiis inaan nahay inaan xasuusnaanno su'aashu waxay tahay marka gaalkacyo ma waxay ku tartamaysaa colaadda mise waxay ku tartamaysaa nabad iyo horumarka go'aankaas idinkaas ka leh idinkeena idinka go'daa annagu waxaan idin qaban karnaa oo keliya in aan isu kiinkeenno inaan niyad wanaagsan dhexdiina aan ugu jirno si wanaagsan aan dib heshiisiinta uga shaqayno wax alla wixii loo baahan yahayna aan gelinno laakiin idinkaan idinka rabaa inaad keentaan nabaddaas waxaa laga rabaa inay keenaan koow salaadiinta culamaa'udiinka iyo madaxda siyaasiyiinta ah iyo idinka oo la doonaya inaad ku khasabtaan maxaa yeelay idinka way wax ku luminaya waa idinka horumarka waxbarashada dhaqaalaha idinka ku luminaya magaaladan waxaa imaan lahaa investment ha imaan lahaa oo shisheeye oo Soomaaliyeedna waa imaan lahaa waxaa loo imaan la'yahay magaaladan ay u ballaaran laadahay waa weyn tahay hadda waxay u sii weynaan laadahay waxa weeye qof walba wuxuu leeyahay meeshaan ama dhibaato ka timaada oo lacagtaada iyo dhaqaalahaaga ku weyda macnaheedu waxay tahay idinkaa ku shaqala'a markaas idinkaa ku shaqala go'aanka dib u heshiisiinta idinkaas ka leh ee ogaada annaguna waa ballan waa idinkala shaqaynaynaa suu madaxweynaha sheegay waxaa idinkaga maqan nabaddaas waxaa idinkaga maqan horumar baa idinkaga maqan annaga dawlad ahaan waa idin keenaynaa wax alla wixii horumar u baahan tihiin waa idin keenaynaa laakiin sidaad aniga ii soo dhawayseen maanta qof walba oo Soomaaliya waa in loo soo dhaweeyo walaalaha tihiin soo dhaweeya insha Allah waa ka war qaadanaynaa waxaan u nimid halkan dib u heshiisiin taasoo aan ballan qaaday maalintii la doortay aan ballan qaaday gacan igu siinaysaan magaalada inay noqoto magaalo nabada oo horumar leh oo mustaqbal fiican leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh